kulanti wanaagsan daawadayaal markale iyo barnaamijkeena falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu weyn daawadayaal boqolaal qof oo lagu xidhiidhayo dalka Saudi Arabia iyadoo baaxsiga ugu darnaa uu ka jiro dalkaasi Mohammed bin Salman ayaa birta kula dhex jira dadka ka soo horjeeda isagoo doonaya inuu wadada banaysto caalamka oo dhan oo heegan ku jira iyo Soomaaliya oo heeganka ugu weyn ku jira warar ku saabsan magaalada Muqdisho iyo dareenka ka taagan dalka Turkiga ayaa mar kale ugu baaqay ama diiday talaabooyin uu ku sheegay in ay dawladda dalkaasi Russia doonayso inay ku ciribtirto dadka muslimiinta Tatariska la yiraahdo ee gobolka Crimea iyadoo sheegtay inay Crimea u aqoonsan tahay xarun caalamka islaamka ka tirsan dal kamid ah dalalka caalamka islaam hogaamiyahooda ayaa loogu baaqay inuu ka daayo dadkiisa dilka iyadoo dunidu ay xanuun soo food saaray isla markaana uu dadkiisa u naxariisto xanuunka iyo wararkii ugu dameeyay dalal badan oo xayiraad soo rogay sidoo kale gabaabsi ayuu ku jira dunida cuntooyinkooda iyo arrimaha daruuriga ama qutul daruurigu sidoo kalena waxaa jira talaabooyin waaweyn iyo dawladda dalka Mareykanka markii ugu horeysay dhaqan kamid ah dhaqamada islaamka ay ku dhaqmaan ugu baaqday dadka ku dhaqan gobol kamid ah gobolladeeda inay subiyaan iyo guud ahaan dalka Mareykanka ay u baahdaan waa qodobadaas iyo kuwa kale warbixinada dhinaca diblomaasiyadda oo 17 Maars waa 2020 waa markale barnaamijkeena falanqeynta wararka warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaal waa cali dhinaca diblomaasiyadda iyo wararkii ugu dambeeyay dunida daawadayaasha qiimaha leh saad ogtiin ba maalintii shalay toole waxa markii ugu horeysay goor gaaban dawladda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday in ruuxii ugu horeeyay oo xanuunka la yiraahdo faafaha daran ee markaasi sida daran wax uu gaarsiinaya dadka ama u faafaya markay noqoto dhinaca faafanimada ayay ku dhawaaqday qofkii ugu horeeyay ama dhacdadii ugu horeysay dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa shacabka ugu baaqay Soomaaliyeed inay guntiga dhiisha uga xidhaan in ay marakan ay ka hortagaan xanuunka faafaya isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay isku naxariistaan iyo sidoo kale inay dawladda Soomaaliya ay ku tashadaan ayna ka go'an tahay in ay wax walba ka hormariso badqabka muwaadiniinta dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa xusay in xanuunka ku faafaya dunida oo dhan isla markaana soo gaaray dalka Soomaaliya uu ka mudan yahay dadka Soomaaliyeed in ay si xoogan uga hortagaan ilaa hadda waxaan xaqiijinay gudaha dalkeena hal qof oo bukaan xanuunkan waxa khatartiisu gaarsiisan tahay meel aad u sareysa oo waxa uu si degdeg ah ugu faafaya dalal badan oo ay ka mid yihiin dalalka dariskeena Ethiopia iyo Kenya ayuu madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in aad loogu hogaansamo talaabooyinka iyo amiirta dawladda iyo kuwa markaasi dadka cilmiga caafimaadka leh ee ay soo saarayaan wuxuu sidoo kale ugu baaqay bulshada inay lafdhabar u tahay ayuu yiri ama wuxuu yiri bulshada ayaa lafdhabar u ah dadaalka ay dawladdu kaga hortagayso cudurka sida darteedna waa inay u istaagaan wacyigelinta una hoggaansamaan fariimaha caafimaad iyo qorshayaasha dawladdu ay kaga hortagayso ayuu yiri xanuunka faafaha daran ee coronavirus daawadayaasha qiimaha leh iyadoo ay taasi jirto ayaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaa si weyn looga dareemay ayaa la yiri soo ridashada qofkii uu shalay xanuunka soo ritay magaalada Muqdisho Hurfadhi Media ay ku horgashay isla markaana warfidiyeennada Hurfadhi Media ayaa soo tabinaya in ay u muuqato in kor u qaadnay qiimaha alaabaha daruuriga oo ah sida dareerayaasha jeermisleeyaasha taasoo la yaab noqotay kadib markii la sheegay in alaabaha $2 joogay ilaa $23 ilaa $25 ay gaarsiiyeen ganacsatada marka ay masiibooyinku dhacaan inta badan ganacsatada iyo waliba dadyooga dunida oo dhan waxa ay sameeyaan naxariis jeer dhaaf iyo inay isku tashi ku sameeyaan oo ay dadkooda u naxariistaan laakiin bedelka inta badan dadka Soomaaliyeed waxay caan ku yihiin in markasta oo ay dhibaatooyin dhacaan noocaas oo kale ay uga faa'iideystaan dadkana lagu joogsado tan ayaa la yaab ku noqotay Hurfadhi Media markii ay ogaatay iyadoo wali Hurfadhi Media ay ugu baaqayso dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka wax haysta ganacsatada dukaamada shirkadaha waaweyn inay qiimo dhimis xoogan ay u sameeyaan dadkooda iyadoo haatan ay tahay marka loo baahayay in isku naxariistaan waxa fajicisa in xilliyada dunida ay dhibaatooyinka soo food saaraan waqtiyada farxadda iyo ciidaha aad loo jabiyo dhammaan basaad ogtihiin ganacsiyada caalamka gaar ahaan dadkiina laga yaabo in qurbaha joogaan waxaad aragtaan waxa loo yaqaan Black Friday oo kale oo dalka Mareykanka ama Thanksgiving maalinta ay Mareykanku markaasi ay gaajada ay markaasi xusaan ama maalintii ay gaajoodeen ay xusaan ama maalinta oo ciid kamid ciidaha ay xusaan oo kale dunida oo dhan Christmaska waxaa la sameeyaa qiimo dhimis xad dhaaf laakiin waxaa la ogaaday in dalka Soomaaliya ay la sameeyo qiimo kordhin taasoo ah wax aan dhaqanka islaamka iyo kan aadanaha midnaba ku jirin Hurfadhi Media waxay soo ogaatay in shirkado badan iyo dukaamo badan ay kor u qaadayaan qiimaha dareeraha gacmaha la marsado ee markaasi jeermistilaha ah iyo sidoo kale alaabaha daruuriga ah sida saabuunta iyo waxyaalaha la midka Hurfadhi Media waxay wali ugu baaqaysaa dadka Soomaaliyeed inay isku tashadaan isku naxariistaan isla markaana ganacsatada Soomaaliyeed qof kastaba heerka uu ka joogo ganacsiga inuu markan uusan naf ka dayin in dadka uusan ka faa'iideysan baahidooda laakiin uu u faa'iideeyo dadkiisa maranihin alaabtaada bilaash ku bixi ama ku baaqimin laakiin waxaan ku baqanaa in qiimaha
alaab adiga intay kugu joogtay aysan sabab ayaad kor ugu qaaday aysan jirin laakiin alaabtii dalbo ha ka socoto qiimaheedina kuwa maadaama aysan jirin meel adduunka kaargooga ama shixnadaha lagu kala xanibay ma jirto sidoo kale waxaan sheegay dadka Soomaaliyeed inaan lagaga faa'iideysan qiimahaasi waayo shixnadaha ma jirto meel ay gabaabsi ku yihiin ilaa hadeertana shixnadu gabaabsi ma isku socodka dadka gabaabsi ah maraakiibtu waa qulqulayaan doonyuhu alaabta qaadayaan diyaaradihii markaas kaargooga hay alaabta sidee iyaguna way imaanayaan sida daraadeed yaan lagaga faa'iideysanin alaabtaasuna meel walba way taala sida daraadeedna waxaan u rajaynaynaa dadka in ay dadka u naxariistaan horfar media mar walba shacabka ay jirta halkan dagala socdaan daawadayaal waa wararkii oo cala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan oo qiimaha leh iyadoo aad ogtihiin in xanuunkan uu jiro ayaa dunida waxaa ka jira dhibaatooyin kale ugu badnaadeen dalalka caalam islaam dal kamid ah dalka caalam islaam ayaa waxaa loogu baaqay in uu laynta ka daayo dadkiisa iyadoo oo ay dhibaatooyin dunida ka jiraan hogaamiyaha dalka Suuriya Bashar al-Assad oo ah ninka sida weyn dhiga ugu foldhaqday ayaa waxa ay dunida gaar ahaan dalalka ugu tutudharoon dhinaca awoodda dhaqaale iyo tan militariga ay war qoraal ay soo saareen ay ka tuugeen in uu dadkiisa ka dhaafo dilka iyo jugta diyaaradaha xilligan adag ee dunida soo fasaartay war qoraal oo ay soo saareen dalalka Faransiiska Jarmalka the Britain dalka Mareykanka ayaa loogu baaqay taliska Bashar al-Assad in uu joojiyo dilista ayal ama dil wadareedka uu dadka ku sameeyanayo isla markaana uu dalkiisa xaalad iyo xasilooni siyaasadeed u raadiyo waxaa lagu sheegay war qoraal oo si wada jira ay 40 dal u soo saareen in ay wali dalbanayaan in qaraarkii qaramada midoobay ee UNSCR ee 254 ee la raaco dhamaantiiba qodobadiisa uu ka koobnaa isla markaana la aamusiyo qoriga oo la joojiyo xabadda daran ayaa lagu yiri qaramada midoobay iyo golaha amaanka iyo dunida oo dhan waxay sugaysaa in Bashar al-Assad uu waantoobo oo uu joojiyo xabadda rasaasta oo uu joojiyo isla markaana xabad joojin ka bilaabo dalka oo dhan isla markaana uu ku sameeyo wax ka bedel dastuurka uu ogolaado dadka uu sida aan kala sooc lahayn loo qabqabtay in la sii daayo oo sidoo kale uu ogolaado dadkiisa in ay si nabadgelyo dalkooda ugu soo noqdaan oo ay u noolaadaan sida aadanaha kale si sharfan arrinta ay ku soo beegmaysa ayada xuduudda dalka Greek bahdilkii ugu weyn lagu sameeyay dadka reer Suuriya dhibaato xooggan ay u geysteen ciidamada Greece dawladda hadalka soo saaray waxay sheegeen in ay maxkamad sugi doonto Bashar al-Assad hadii uu waantoobi diido waxay sidoo kale ugu baaqeen dawladaha kaabaya ee baritaarka u ah ay yiraahdeen Bashar al-Assad in ayagana lala xisaabtami doono goor ay noqotaba dawladaha Russia iyo Iran ayay ugu baaqeen inay joojiyaan dagaalada ay gobolka Idlib ka wadaan iyo gobolada kale ayagoo ugu baaqay in gobolka Calaaba iyo gobolka Idlib waxa ka soconaya aysan ahayn wax caadi lagu tilmaami karo dhamaanna waxay sheegeen in dhacdooyinka dhinaca bini'aadanimada ah ama darsanaya iyo dadka dhibaatada iyo qalalaasaha dhaqaale kuwa caafimaad iyo kuwa markaasi hooyba haysato ay wakiilka yihiin ayagu isla markaana damaanad qaadi doona dalka oo dhan wuxuu u baahan yahay xabad joojin waajibtay wuxuu u baahan yahay gobolada loogu yeeray markaasi de-escalation zone ama aaga xasiloon ee la xasilinayo in loo wantoobo taasoo la yiri tii Turkiga iyo waxaan raacsanahay tii Russia aad ku heshiiseen hadii ay dhinaca Russia iyo Suuriya ay ka noqonayso ayaa la yiri meel mar qoraalka waxa sidoo kale loogu baqay in la sii socoshada iyo waliba diiwaangelinta baa dambiyada foosha xun ee Bashar al-Assad uu geysanayay aadanaha ka dhanka dambiyada dagaalka iyo burburinta caruurta yaryar iyo in la xisaabtamo dunuubta waaweyn uu galaya aysan ahayn kuwa markaasi looma kala tagaana ayaa lagu yiri cidna aysan iska dhaafi doonin halka nagala socotaan daawadayaal wararkii oo cala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo kale iyo warbixino waaweyn baa noo soo socda daawadayaal ee xanuunka coronavirus oo ah faafaha daran ee sida weyn haatan adduunka waxa keenaya daawadayaal waxa uu kamid yahay dhibaatada weyn ee daawadayaal waxaan rabaa xanuunka inaynu arintiisa ku saabsan dadka uu soo ridanayo xanuunka iyo dadka u dhimanaya horta baan rabaa inaan in yar ka iraahdo dad badan waxay soo weydiinayaan dadka xanuunka u dhintay intee leegi dadka xanuunka u dhintay maanta waa ku dhawaad 7,000 qof dadka uu soo ritayna waa ku dhawaad 200,000 qof sida daraadeed mar walba dadka xanuunka ka ladnaanaya ama ka soo kacaya ayaa ka badan dadka u dhimanaya inkasta oo xanuunku uu dhibaatada uu leeyahay ma waxaan xanuunkan uu anfiriirka faraha badan u leeyahay waxa weeye marka oo horeysa qofka xanuunkan waa xanuun qofka uu faafinayo sida daraadeed qof kasta uu ku dhaco wuxuu ku qasban yahay inuu noloshiisa oo dhan uu ka joogsado oo qol isku xiro ama meel cusbitaal lagu xiro hadii uu dawo u baahan yahay hadii kale oo qof la aaminsan yahay inuu difaaciisu la dagaalami karo xanuunka uu yahayna meel kale lagu baxnaaniyo gurigiisa lagu baxnaaniyo shaqooyinkiisa banaan bixiisi socodkiisa wixiisa oo dhan baa joogsanaya sidoo kale waxa
aad iyo aad u badnaanaya suurtagalnimada inuu dadkii la xiriiray oo dhan uu xanuunka qaadsiiyo sidaa daraadeed ayaa keenaya xanuunka dhibaatada xoogan ee la aaminsan yahay ee faafaha kelmadda faafaha saas aynu u dooranay dadka qaarkoodna caabuq bay sheegaan xanuunkana wax caabuqa oo dhakhaatiirtu ay ka sheegeen ma jirto neef qabasho iyo waxaa lagu sheegay markaasi xanuunkan qandho daran sidoo kale shuban ayuu leeyahay waxa uu markaasi yahay faafe daran oo qandho saayid leh qandho aad u daran ayuu leeyahay xanuunkan waana qandhada waxa dadka ku dila ama wax ku waxyeeleeya laakiin lama sheegin ilaa hadeerto wax dhiig qofku ma tagayo dhiig uu gadaal ka sii deynay waxaas oo dhan lama sheegin ama nabar qofka ka dilaacayo ka soo baxayo caabuq noqon kara lama sheegin sidaa daraadeed daawadasha qiimaha waxaad ogaataan xanuunkan in halistiisu saas ay tahay dadka Soomaalidaana mar walba waxa la doonayaa xanuunkan inaysan argagax ku wajihin ee ay taxadar ku wajahaan argagax iyo taxadarkuna waa kala laba arrimood aad u kala duwan inaad argagaxdo oo aad aad u argagaxdo oo aad adigu noloshaadii oo dhan aad ka baaqato iyo inaad is ilaaliso taxadarto labadaas way kala duwan dhanka kale waxaa jira daawadasha qiimaha leh wararkii ugu dambeeyay ee xanuunkan ee ka soo baxaya caalamka oo dhan waxa ay muujinayaan in uu xanuunku u muuqdo mid runtii baa la yidhi aad u daran tusaale ahaan dalka Mareykanka ayuu aad u soo taraya gobolka Seattle gobolka Washington magaaladiisa ugu weyn Seattle waxaa lagu dhawaaqay 5 milyan oo doolarka Mareykanka in loo qaybinayo ayaa la dukaamada baa la yidhi cuntooyinka daruuriga iibiya si markaasi loogu sahlo ayaa la qoysaska u baahan in lagu saacido waxa la yiri 6250 qoys ayaa waxay u baahan yihiin in laga saacido waxaana qoys kasta la siinaya 800 oo doolarka Mareykanka si ay cunto ugu gataan iyo waliba xalay alaabaha wax lagu nadiifsado sida guryaha alaabta lagu nadiifsado alaabaha markaasi dareeraha ee germs dilayaasha iyo kuwa kale waxa sidoo kale jirta oo Mareykanka uu qaadaya talaabooyin waaweyn oo ay kamid tahay dhammaan in la xiro dukaamada baararka iyo meelaha oo dhan gobolka Minnesota ee Soomaalidu ku badan tahay dalka Mareykanka gofernatoraha gobolkaasi ama gudoomiyaha gobolkaasi Tim Walz waxa uu soo saaray wareegto sharciyeed oo ah mid fulineed oo uu ugu sheegay dhammaan in si ku meel gaar ah loo xiro dhammaan muqaayadaha cuntooyinka meelaha laga cunteeyo meelaha laga quraacdo meelaha laga qadeeyo iyo waliba baararka waxa sidoo kale arrin gobolka la yiraahdo Arizona asagana laga soo qaaday talaabooyin waaweyn ayadoo la joojiyay doorashadii maalinta saalsada dhici lahayd gobolka Ohio iyo sidoo kale doorashadii sarreebka ahayd ee xisbiga dimuqraadiga oo qabsalaha iyadana la laalay ayadoo gobolada iyo waliba xaaladaha dalka oo dhan ay soo tarayaan waxa sidoo kale la mamnuucay dhammaan saneemooyinka dalka Mareykanka oo dhan waxaana la sheegay in ay arrintaasi u muuqato mid talaabooyin adag laga qaadayo ninka loo yaqaanay tooraha caanka ah loo yaqaanay Tom Hanks iyo xaaskiisa Rita Wilson ayaa la sheegay in cusbitaal ka soo baxeen kadib markay soo raysteen isla markaana ay dareemayaan ayaa la yiri in ay sidii dhaamaan oo neefsashadoodu fiican tahay waxaana lagu xakameeyay waliba la yiri xarunta ay ka degan yihiin dalka Australia magaalada ku taala waxa sidoo kale xanuunka uu ku dhawaaqay inuu soo ritay nin isaguna dhawaan la aqal galay gabar Soomaaliya oo asaguna kamid ah aktarada iyo dadka aflaanta jira oo leeyahay Idris LP iyo xaaskiisa ama gabadha markaasi uu la degan yahay la yiraahdo Sabrina Dowre ayaa waxay sheegeen in ninkaas xanuunka laga helay Sabrina hadda waxay sugaysaa ayadana xanuunka laga soo baaro sidaasana u muuqata ayaa la yiri dabcan iyadoo hadeerse war qoraal ah oo soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in gobolka Ohio laga diiday codsashadii ka timid baa la yiri gudoomiyaha gobolkaasi ay ahayd inaysan doorashadu maanta dhicin waxaa la sheegay in gofernatoraha gobolkaasi laga diiday arrintaas waxa si weyn u diiday maxkamadda gobolka iyadoo sheegtay in ay doorashadu sideedii u dhici doonto isla markaana ay noqon doonto ayaa la yiri mid dhacda hase yeeshee gobolada Florida iyo Arizona oo iyaguna gobolada swing states ka loo yaqaan gobolada isjilada ayaa wali aan loogeyn maxkamaduhu ay ogolaa doonaan kala qaybta labaad ee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda wadaya